So the poem is called Qayb Libaax, meaning lion's share. qiyaashow libaax baa dhurwaa qayb yidhi soore wuxuu yidhi hilbaha jeex balqabo qoon dhan baan nahay markaasuu qabbabaalihii qoonsaduu dilay darbaaxuu il kaga qaadayoo hoor ka soo qubay afqashuushle goortuu dhintuu sii qataabsaday qambaruursi iyo oohin buu qoon dunuuncay dawacuu kolkaas soo qabsaday sida qisaaseede iyadoo qarqari buu ilkaa qoorqabkii xoqay wuxuu yidhi qanjaafulo xumay tali qadaarkaaga adeer gacalle qaar iyo dalool qaaxo iyo feedho qumud iyo baruur iyo lag iyo qawdhihii kuruska ku wada qorsheeyay islow neefka wada qaado kolkaasuu wixii qaday qabsaday qoobab kadafleey wax la yidhi qabiil maleedayo qayliyaha aare innagoo qurundhan maxaa qaday inoo diiday dacdii hore haddaan dayay kobtuu weerku sii qulushay badh baa kuu qismo ah waa wuxuu eeday qaaryara eh aniguna qudhaasaan ahoolay qulqulateeday qudhaydaan u yaabaya miyaan idinka saartay war maanoon qudraba hayninbaa qamash ka soo waaqsay anna qayb libaax weeyey taad igu qasbaysaane bartaan ka qalbidiid anna qayb libaax weeyey taad igu qasbaysaane dadka igu qoslaayay iyo kobtaan ka qalbidiidaay qadayay adduunyo uma socon waadi qaxarteen midii I think I should stop there. When the British came to Somaliland, the Somali soil, they ruled there as their, as their own. So Sayyid Muhammad was one of the few people who, revolted against such colonizers. And for 20 years he waged war against the colonizers in three fronts: the Italian, the British, and the Ethiopian. So after the defeat of the Dervish in 1920, some of his family, they had nowhere to go except their alliances, like in the Oromo people. And some of the family went there and they stayed there for about 2 years. They felt betrayed by their hosts because everything they had was taken away from them, and including women. So one of the women that revolted against such unjust marriage was called Jamaat. Jamaat was the daughter of Sayyid Muhammad. They felt like they were cheated, like the rest of the animals were cheated by the lion of their share when they had a big camel. So because of that poem, and the chief who was going to marry Jamaat withdrew his decision and instead married another woman in the family.